maxaa ka nasiib badan gabar heshay nin fahma oo carruurta aad u jecel? maxaa ka nasiib badan gabar heshay nin lagu soo barbaariyey jacayl iyo mas'uuliyad? maxaa ka nasiib badan gabar heshay nin daneeya iyada iyo carruurteeda una ah dunidiisa oo idil? gabdhaha markay guursadaan nin ay dooratay oo ay jeceshahay waxay rajaynaysaa kana filanaysaa kana doonaysaa nolol qurxoon oo farxad iyo macaan intaba ku dheehan. inta badan ragga way dadaalaan inta lagu jiro shukaansiga iyo soo dabitaanka jacaylkiisa, balse dhibtu waxay ka taagan tahay marka uu ka soo wado gurigii aabbaheed ayuu wax walba uu samayn jiray faraha ka qaadayaa. danayntii, koolkoolintii, keenidii hadiyadaha, fiyoorihii gaduudnaa, cunadii ay jecleed ee uu u wadi jiray bannaanka, sawiradii la isla geli jiray iyo istorigii la isku casuumi jiray iyo waqtigii faraha badnaa ee uu baray iyada la qabsatay, ka qoslintii iyo kaftankii iyo qaar kaloo badanba markay ka weyso meeshaasi gabdhaha badanaa way niyad jabaan. qaar ayaa u sheega dhibkooda iyo waxay dareemeen nimankooda, balse ninkeeda xumaan kama ahan, maba dareensana oo maba ku baraarugsana arrimahan qiimaha ay u leeyihiin gurigiisa cusub. xaaskaada markay uurka ugu horeyso kuu qaado, ha bato fasaxaada shaqada. soo ma ogid waa markeedii ugu horeysay ee uur yeelato, waana markii u horeysay ee marayso xanuuno aanan laga sheekayn karayn, dhibka iyo xanuunka ay leeyihiin. maadaama ay hormoonadeeda ay isbedbedelayaan, jirkeedii iyo dabcigeedii iyo nolosheedii dhammeed wax badan ayaa iska beddelayo. cunooyinkii qaar ayaa jirkeeda diidaya, xanaaqeeda ayaa badanaya, dulqaadkeeda ayaa sii yaraanaya, xanuunadeeda ayaa marba mar ka dambaysa sii badanaya, sababtoo ah hormoonkeeda oo aad u shaqaynayo. waa naf lagu dhex abuurayo naf kale. xaaladdaasi waxaa loo baahan yahay inaad xaaskaada daryeel iyo danayn iyo xanaaneyn siisid, waana waajibkaada, ma ahan wanaag iyo hibeen, sababtoo ah waxay wado waa dhiigaada. haddaadan xaflad u samayn karayn, magaalada u wadi karin, meelaha ay jeceshahay sawiraan xusuus leh iyadoo uur leh ku soo sawiri karayn, haddaadan farxad, xanaanayn iyo ilaalin habeenkii markay jiifato ah samayn karayn, haddaadan waxay necab tahay ka ilaalinayn, haba uuraynin. u sheeg inaadan hadda awoodin mas'uuliyad aabanimo. runta aad ayay u fiican tahay. haweenka aad ayay u jecel yihiin ragga runta u sheega. sideedaba waxaa fiican inaad ogaatid guurka inuu mas'uuliyad weyn yahay.
oo gabadha gurigooda haba ka soo wadan haddaadan danayn iyo dulqaad u lahayn. haddii kale waa ku ceeboobi, waa iga talo. maxaa ka fiican xaaskaada oo uur leh inaad xaflad u samaysid, sawiro xasuus ah wada gashaan, beri markay dhashana aad xaflad kale u samaysid oo u muujin ah inaad ku faraxsan tahay nolosheeda. iyo gabadha ama wiilka idinku soo biiray ee boqoradda ama boqorka guriga aad la ilaalin doontid, lahayn doontid, u sheegtid inay marna ku dhibaatoonaynin, ka qoomamaynaynin dhalintooda. maxaa ka nasiib badan gabar heshay nin fahma oo carruurta aad u jecel. maxaa ka nasiib badan gabar heshay nin lagu soo barbaariyey jacayl iyo mas'uuliyad. maxaa ka nasiib badan gabar heshay nin daneeya iyada iyo carruurteeda una ah dunidiisa. inaragow, waan idinku hambaliyeynayaa isbeddelada wanaagsan ee aad samayseen maalmahan ugu dambeeya. rabbi ka baqa, xaasaskiina ha ku dayacina carruurta, la korsada, isxanaaneeya, la noolaada, waqti la qaata gurigaada. waa farxaddaada koowaad. ha yaraysan si aadan nolosha ugu dhicin. taasi waa sir yar aan idin sheegay.